gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciidahana murashaxa madaxweynaha xisbigaasi injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay dagaal beeleedka ka taagan koonfurta gobolka Sool waxaana ugu baaqay labadaasi beelood inay colaadda joojiyaan. injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta qaar ka mid ah warfidyenada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in colaadda beelahaasi oo soo noqnoqod ay ku jirto gacan shisheeye waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aad fool xun waxaana uu soo jeediyay labadaasi beelood inay nabadda qaataan oo ay colaadda joojiyaan. marka waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala baridiisa laguma qaade inuu Ilaahay abaarta naga qaada Ilaahay iska jeclaysiya hadaynu dhaxdeena wanaag ku badino salaanta ku badino Ilaahay raxweyno raxmaan doona oo ka saarna xasidka caloosheena iyo ismacaashaha iyo qabyaaladda dhanka saarna Ilaahay inuu naxariisto Ilaahay inuu naxariisto subhanahu wa ta'ala abaari waa dheeraadeen dad baa jira fogaaday oo ilaa iyo dhulka Boosaasi agteeda tegay waxaan ku boorinayaa guddiga abaaraha iyo dawladaba in dadkaasi u soo noqon lahaayeen oo dhulkooda u soo noqon lahaayeen gaadiid iyo biyo badan siibaan ku boorinayaa dadka nafaqad darada ku dhacdayna in dadku la wada gaarsiiya oo si cadaalad dadku u gaadhaan ka jeclaan beelahan isku diliyana waxa weeye waa calaamaadka jahliga weey dagaal qabiil waa calaamad jahli oo islaamku intaan iman ayaa reer isku dili jiray dagaalkan uu soo noqday in badan baa la galay waxa ka muuqata in habkii maga qabaa'ilku isqoonsan loo mari jiray in laga leexday qaanismkii loo mari jiray weli wada reemiyo ama qabaa'ilku miyo isku leen jireen laakiin hubkan marka isla dhacayna ma haysan jirin oo technique ama haysan jirin wala xabadi ka dhacayso waqtiyada baad uu kala joogaa waxaan arintaas culimada gacanta ku haysa gacan la siiyo halaga daayo joqoynta iyo faraha shisheeya ah Gamcaha Madmadow ee siyaasadana laga daayo. gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe dhinaca kalena waxa uu ka hadlay sixir bararka dalka ka taagan waxaana ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay keento arrin lagu xalinayo sixir bararka kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay qiimaha sarifka dollarku halkii ugu sareysay gaadhay. injineer Faysal Cali Waraabe oo mar kale arrintaasi ka hadlay waxa uu yiri horta waa in la joojiyaa lacagtan wax lagu iibsanayo oo mamnuuc laga dhigaa in mushaharka lagu bixiyo dollar in cuntada lagu cuno dollar qaadkan wax ay faa'iido aan lahayn habeenka $300,000 inaga baxaya oo inta doona ku iibsanayo $200,000 $500,000 ku iibsanayo ala joojiyaa Khadar Maareed Somali News Hargeysa.